waan salaamay walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan isaga ku soo dhawaada jadwalka magaalku yaqaaneen rootiinka gabadha yar ee idin muuqata ee Saabirin yareeya shaqada ay reerka u qabato iyo saakay ilmo badan sida waalidiin badan ay sheegeen carruur badan ayaa barnaamijyadeeda dhaqanka ama nolosha miyiga aan dhahe daawada marka barnaamijkan waxaan ku talagalay ama mowduucan ba carruurta magaalada joogta inay arkaan bal carruurtii kale miyiga joogay shaqooyinka ay qabtaan Saabirin waa gabar yar oo 6 sano jirta marka reerka shaqo weyn bay u haysaa waa inaa saaka ila daawataan ma sha Allah adana igu soo kaaba waxari ay oo ka qaadaysaa dabcan ilmaha baadiyaha jooga shaqooyinka ay qabtaan waxa koow ka ah xiliyada ay yaryar yihiin waxa raacidda ayaa koow ka ah marka aragii waa la soofay oo dib laga qaaday dadkii waaweynaa xoolii bay kala raaceen iyo wixii kale shaqo qaba lahaayeen iyaduna waa taa shaqadeedii waxari bay oo ka soo qaadaysaa halkan waxara kale ayaa ku xirxiran oo lagu xirxiray waxara marka inta waaweynaa xirada yarta ay arkaysan ayaa lagu xareeyaa inta yaryarna waa la kala qayb sida mowduucyo horeba aan ku soo dhigay marka hadda naylihii ay furfuraysaa iyo wanankii oo jamac waa nayl ahaan marka wan iyo nayl bay u sii kala baxayaan walba loo yaqaanaa mareegna waa la yiraahdaa kale magacyo kala badan waa laga yaabaa in la yiraahdo Saabirin yaray waxay laba qaybood ay soo furfurtay qayb xira ayay ku xareysnaan ama meel yar loo sameeyay waxaraha edag sida u taqaanaan kuwa qolba lagu xirxiray ama mareegsa u taqaanaan kuwan kalena iyaguna halkan ayay ku jiraan iyaguna waa qayb kale oo kale waxara waxa loo kala qaybinaya isma qaadan karaan kuwa meel ayaa lagu xareynayaa ilmaha adaan xushi sharaxo ilmaha mowduuca ugu talagalay waxara hooyooyinkood baa laga xirayaa sababta looga xirayana waxay tahay caanaha ay ka dhameynayaan caanaha la qaybsanayaa marka hadii loo sii daayo hooyooyinka iskala joogaan sidiinoo kale waxa weeye caanaha ka dhameynayaan ama way dhibayaan dhibkii ka badatay ilmaha daadiin marka waa laga xirxiray inayna aragii ama hooyooyinkood aysan dhibin maanta oo dhan aysan nuugin ayaa looga xareeyay ma sha Allah barnaamijka maadaama ilmo ugu talagalaan u sii sharaxayay Saabirin yaray waxari way soo furfurtay waxaraha xilliga roobka waxba lama siiyo naqa cagaaran ama dooga ay soo cunaan laakiin marka xilliga ay roob la'aan tahay ama jiidaalka ama kaliisha ama diraacda sida u taqaanid waxaraha waxba la siiyaa oo sidii marka dadka kale ayaa biyo iyo badar la siinaya marka waxaraha hore laga ma sii raacin Saabirin waa taa wili celcelinaysa raashin baa la siinayaa quraac baa la siinayaa quraac hadda afkiina inkugu sheego markaas xarii waa kuwaasa ma sha Allah yaryar iyo waaweyn aaran iyo waxara yaryar iyo maqal iyo intaba way iskugu jiraan badar bay siinaysaa sida idin muuqata badarna lama dhac calaf bal ila waxara la siinay calaf baa loo yaqaanaa oo wax yar oo budabada ama buunsha ah Saabirin dabaysha ka qaaday badarkii marka waxarii bay badar siinaysaa waa shaqooyinka ay qabato Saabirin sidaan kugu soo gudbinaysaa kay inaad aragtaan bal ilmaha baadiyaha hawlkarnimadooda adinka waa la idin kari la'yahay adinka waaweyn waxa la idinku kari la'yahay wax soo qabta caruuray bal u fiirsada gabadha yar ee 6 sano jirta sidii reerkeeda ugu shaqeynaysa ma sha Allah waxarii waa la soo siiyay waa la soo quraaciyay ama waa la soo siiyay badarkii kadibna yani wixii calafkii iyo biyo iyo la soo siiyay kadibna waa la raacayaa taas Saabirin halka la joogta geedaha ama duurka cidlada ay kaliya ku soo ilaalinaysaa halka ay waxari la joogtaa ilmaha qaar way baqaan baadiyaha waxay dhahaan Allah bahal ma joogo bahal baa cunaya bahal ma joogo baadiyaha inta badan Soomaaliya bahal lagu ma arko maanta dadaalka iska joogto iska ciyaaraysa wax bahal ma arkaysid geedka caada ka goorsanaysa magaciisa qansoole ma lagu cadaydaa meeqa geeda lagu cadaydaa
dheerdheerga iyo qaansoolaga dheerdheerga iyo qaansoolaga iyo rumasanka inta ma lagu cadaydaa ma sha Allah saabrin waa soo aragteen xariibay halka la joogtaa geedkaas ku nasanaysaa way soo daashay buskud dhiiqaas ay cunaysaa oo isagana magaalada looga keeno lisleeya bal diraacda uga soo baxdo ma sha Allah marka halka ayaa la nastaa waxraa ilmaha baadiya marka si waxraa u ilaalinayaan way daaliyaan maanta oo dhan oo guri uga celinayaan bahal ma joogaane guriga uga celinayaan ayay daalayaan kadibna halka ay iska fadhiisanayaan buskudkana mar walba ma helaane waxa weeye hadda nasiib bay u heshay saabiriin xilliguna markuu barwaaqada yahay waxaruhu inta badan ma dhib badna iska dhargayeen laakiin xilliyada jidaalka ama xilliyada roob la'aanta ay maanta guriga ku soo meeraysanayaan ugu dambeyntii marka saabiriin wata halka fadhida maxay tahay waxareeyada la joogtay soo daashay halkaas nasanaysa waxa ay saabiriin soo gurnayso waxa la yiraahdaa cadaad xabagtiis ama geedka cadaad baa la yiraahdaa waxaasna xabag baa la yiraahdaa cidii garanaysa way garanaysaa baadiyaha xilliga roobka miraa la helaa laakiin hadda waa jidaal waa la iska xabkaysanayaa mowduuc inta ayuu qaybtii koowaad ku ekaa insha Allah mowduuca qayb labaad uu leeyahay waliba saabiriina codka idin soo saari doonta haddaa codsataan tani intaan ku kulmi doono mowduuciga sidaas iyo ilaa abaarta naga soo bixi noo soo duceeya